saaxiib yeel kusoo dhawaad qaybtii saddexaad ee tahaniyo inoo socday haddii aanad soo daawan qaybihii hore laba qaybood hore ayaanu ka soo samaynay fadlan soo daawo channelka dib ugu noqo muuqaalkana lagta saara saaxiibayaal si aan u soo dedejinay xalqadaha dambe dhanka kalena saaxiibayaal aad ayaan idinku mahadnaqanaa maadaama aadna gaadhsiiseen 100,000 oo subscriber sidoo kale waxaan idinla socodsiinayaa asxaab badan ayay weydiinaysay filimkan magaciisa waa ka Ang Mutia NG section E baa la dhahdaa 2025 buu soo baxay wadanka filimkan uu ka soo baxayna waa wadanka Philippines sidoo kale waxaan idinla socodsiinayaa xalqadaha taxanaha waa 16 xalqadood sidaad aragtaan xalqadaha la soo fasaxay waa 7 xalqadood oo kaliya episode 7 ay ku joogtaa saaxiibayaal waxaan isku daynaa xalqado marka sidaa u soo baxaan sida ugu dhaqso badan leed ku soo koobno 7 xalqadood ayaan idin soo koobnay haddaba saaxiibayaal haddii ay xalqadu soo ragaan sida ula socda xalqadii ayaan la soo wada fasaxin marka la soo daayana waxaan isku daynaa sida ugu dhaqso badan leed ku soo koobno haddaba saaxiibayaal aynu ka sii wadno halka ay noo marisay waxay noo marisay Kevin oo isku arkay Yuri iyo Jay wada fadhiya isagoo waliba aad uga xumaanaya kadib waxaan arkaynaa Jay iyo Yuri wada sheekaysanay Jayna waxay aad ugu faraxsantay cuntada ay cunayso Yurina wuxuu weydiinayaa sababta waxaan oo dhan ay ugu sameynayso CN waxaan oranaysaa CN waa walaalkayga yar oo kale waxaan ka oranaysaa balse walaalkaaga yar dhibaato loo geystay madka amusilayd adigu Yurina su'aal kale ayuu weydiinaya waxaan ka oranayaa maxaad sidaas oo dhan ugu danaynaysaa laakiin waxay ka oranaysaa su'aalaha aad badisayba kaliya cuntadii waa casuuntay meesha shukaan suumayniman ee su'aalaha badan gida Yurina intuu isku xishoodo oranaya balwaayar hal noqo su'aalaha ninka joojinaya kadib waxaan arkaynaa Kivro gaarigii ku dhex jira fariin ayaan loo soo dirayaa markuu akhriyana saaxiibka ay wacaya mid indrik lagu magacaabo kadibna meesha iskaga tagaya kadib haddana waxaan dib u arkaynaa Yuri oo ku maqan gabadhii Jay lagu magacaabayay indhiisana waxa laga dareemayay inuu ka helay gabadhan heer waxa taa isagu si la yaabay oo isweydiiyay maxaad sidan u dareemaysaa ninkan Yurina marka hore dhan wuxuu maleynayay inuu jecel yahay gabadh Ayla lagu magacaabo laakiin imka way isbedeshay Jay ayaan ku haystaa isagoo isla si hadlayna wuxuu isku oranayaa ma waxaad jeclaanaysaa gabadh uu neceb yahay Kevin isagoo isla maqan Jay ayaa la hadlaysa waxaan ka oranayaa maxaad wax u cun weeday laakiin isku dhaxaya waxaan ka oranayaa waa caadi baan cunayaa haddana dib ayuu fikirkiisa ugu noqonayaa waxaan isku oranayaa gabadhan ha u ogolaan inuu Kevin ka faa'iideysto oo ku ciyaaro marka dambe waxaan arkaynaa Kevin oo asxaabtiisa la jooga aad ayaan waxaan aqsanaa waxaan laga dareemiyay qaabka uu dhaqmayo saaxiibadiina way dareemayaan waxaan ka oranayaa niyo waxaan ku dhibayay bal noo sheeg mid kalena wuxuu ka oranayaa arrintu ma Jay ay ku saabsan tahay laakiin isu dhaafinaya waxaan oranayaa xab ma jiraan hawshana si wada saaxiibkiisa ag taagnaana wuxuu sheegayaa inuu jeclaan lahaa in Indrik uu jabiyo CCTV-ga si ay ogaadaan qofka waxaan oo dhan sameeyay amaba saaxiibka CN sidan ku sameeyay Indrikna kadib wuxuu isku dayay inuu hacking ku sameeyo kamarada laakiin marka ugu dambeysay uu ku guuldareysanayaa processkina uu istaagayaa systemkina uu ka xidhmayaa saaxiibadeen Indrikna sidaas ayuu ku xanaaqayaa qofka systemka ka xidhana ma garanayo markii ku dawqaana Kevin ayaa sheegay inay adeegsan doonaan farsamooyin kale ama qorshe kale oo yaalay laakiin halka kama ogaanina qorshahaasi wuxuu yahay habeenkiina waxaan arkaynaa Yuri oo baaskiiladeedii Jay ku soo qaaday waxaan ku oranayaa islaal isagoo baaskiilada wada sidoo kalena wuxuu sheegay in si fiican u qabsato si aan u dhicin isagoo hadalkiisa u dhamayn baaskiilada ay labadooda la dhacaysa Jayna dhulka ay ku dhacaysaa waana dhaawacmaysaa lugta ayayna wax ka noqonaysaa kadib Yuri wuxuu isku dayaa inuu lugta wax kaga xidho marka dambe wuxuu ka oranayaa baaskiilad kale ayaan tijaabinaa iyada ayaan ku oranayaa baaskiilada kale wad laakiin way si adkaynaysaa ugu dambeyntina uu ku qasbaya baaskiilad kale ayaan u saarayaa laakiin iyadoo baabaqanaysa baaskiiladii isagoo dhulka socda ayaa la wadaya waana ku riixayaa marka dambe gurigooda meesha u dhawaa ayaa u gaarsiinayaa markay sida meesha u soo gaadhaanna Yuri wuxuu ka soo dulqaadaya Jay baaskiilada waayo wuxuu inaanay socon karin sida darteed ayaan u soo qaadayaa Yuri isagoo Jay soo sidana wax ku soo baxaysa islaantii eedada u ahayd Jay markay aragtay isagoo sidana wax xanaaqaysa waxaan ka oranaysaa gabadha dhulka dhig laakiin Yuri xataa islaantaba uu dafiraya waxaan ka oranayaa ma socon karto guriga ayaan gelinayaa kadibna guriga ayuu geynayaa meesha nooca sii joogayba Jay adeerkeed Angelo kadibna Yuri iyagoo meesha la fadhiyo waxa uu bilaabay inuu wali ka daweeyo lugta Jay islaantii eedada u ahayd meesha fadhidina waxay ka oranaysaa wiilkani ma saaxiibkaaba ama jacaylkaaga miya laakiin Angelo ayaa soo dhexgalaya waxaan ka oranayaa maaha islaantuna oo yaabisa waxaan ka oranaysaa wiilkani hadda aad buu ku danaynayaa Jayna marka dambe islaanta waxay u sheegaysaa inaanay waxba ka dhaxayn oo kaliya isku galaasiin kadib meesha waxay marayay Jay adeerkeed Aris markuu Yuri meesha ku arkan wuxuu ka oranayaa maxaad meesha ka qabanaysaa Yurina isagoo iska sii tagayo rabo inuu iska sii baxo waxa uu yeedhay Jay eedadeed waxayna ka oranaysaa inaan la cashaysaa islaantii Jay ayida wahaydna waxay u sheegaysaa Aris inuu qaldan yahay kadib Yuri wuxuu isku dayaa inuu Jay caawiyo si ay u soo kacdo laakiin eedadeed ayaa ku soo cararsa waxaan ka oranaysaa anaa caawinaya isdhibin kadibna Yuri wuu banaynayaa laakiin markuu Yuri meesha ka dhaqaaqo islaantii waxay ka oranaysaa waxa wiilkan aad keentay guriga madiloodin aad saaxiib hore lahayd saaxiibkaana weli magaalada ayuu joogaa adiga ayaan ku raadinayaa Jayna marka hadalka loo sheego wayba yaabaysaa halkaan waxaan ka ogaanaynaa in Jay ay lahayd wiil hore ay saaxiib ahaayeen ama eegiskeedii sheekaduna way sii macaanan doontaa maadaama saddexdoodana ay ku dagaalami doonaan Jay Yuri Kevin iyo wiilka kale imika eegiskeeda ah kadibna waxaan arkaynaa family oo soo fadhiistay si cashada cunaan Yurina uu la casheynaya oo uu la fadhiyay islaantii Jay ayida wahaydna way arkaysay labadooda oo ka fadhiya Yuri iyo Jay oo waliba aad iskula socda islaantuna ilaa qof weyn markay aragto waxay ka oranaysaa labadiinan malaa waxba idinka dhaxeeya waan idinka shakiyay
laakiin labadooduba way yaabayaan gaar ahaan jay ayaa indhaa taagaysa marka dambe cashada dhammaatana waxaan arkaynaa jay oo sii dhoweynaysa yuuri wayna macasalaaminaysa waxaana ka odhanaysaa aad baad u mahadsantahay maadaama aad soo dhoweysay yuurina wuxuu ka odhanaya adiguna cashada xafdiinaan ka cunay aad baad ugu mahadsantay kadibna way kala tegayaan jayna marka dambe waxay sii sheegaysaa oo yuuri sii tegayo inay isagiyo siiyeen qadalla cuni doonto maalin dhow weliba wakhtiga iyaga go'aansadaan yuurina hadalkaada ayuu ku farxayaa meeshana uu iskaga tegayaa maalinta dambena jay iyadoo galaaskiisa oo galaysa waxay dibadda ka maqlaysaaba in galaaska buuq ka jiro markay gudaha soo gashay soo carartana waxay arkaysaaba kayfar iyo saaxiibadii oo garaacaya michael iyo gabadhii milda lagu magacaabayey waxaanay rabeen inay ku ciqaabaan wixii ay ku sameeyeen siiyaan laakiin jay way xanaaqaysaa waxaanay ka odhanaysaa faraa ka qaada qaabkan aad waxu wadaanna wax saxa maaha haddii sidan aad waxu sii wadaanna waxaa laynoo qaadanaya inaynu ka baqanayno gaar ahaan kayfar ayaa hortiisa waxaasoo dhan ka sheegtay kadibna kayfar uu xanaaqaya waxaanu ka odhanaya anigu waxaan isku dayay inaan siyaan caawiyo dadkanna waa dad aad u xun jayna way xanaaqaysaa xaqiiqadu siday u jirtana warkama haysaan ayay ka odhanaysaa gabadhii milda lagu magacaabayey ayaana odhanaysa xaqiiqadana idiin sheegaya istajiya weliba wakhti yarna siiya laakiin jay ayaaba gabadhii laga qaqabanaya markay istiraado garaac waayo waxay kasii xanaaqaysaa marka ay tiraado xaqiiqo kale ayaa idinka qarsoon laakiin marka dambe kayfar wuxuu ka odhanaya bal istajiya gabadhana waxaa jiroo dhan haynoo sheegto mildina marka dambe waxay ka odhanaysaa waxaanoo dhan qof ayaa nugu dhaa naga sameeya wax maskaxdeeda ka yimidna maaha laakiin qofku yahay way ku dhiwaaysaa inay sheegto marka dambena waxaan arkaynaa raaki oo kamarad la soo gelisaba galaaska wixii ay gabadhu lahayd oo dhanna duubatay jayna markii raaki sidaa u aragto way ku farxaysaa waxaana ka odhanaysaa qorshaana miyuu kuu qarsoonaa raakina waxay ka odhanaysaa haa sidoo kale waxay usii raacinaysaa inay sidan u samaysay si ay u caawiso siiyeen laakiin jay waxay ka odhanaysaa waan kuwa cabsanayaa maadaama ay wax kugu samayn karaan dadkan aad daandaansatay iyadoo u sheegaysa in aris iyo asxaabtiisa ay ogaan doonaan waxaan dhacay sidaa darteed iyada ay dhibaato u geysan doonaan laakiin raaki waxay ka odhanaysaa aniga waxba iguma samayn karaan istaji jayna marka dambe waxay ka odhanaysaa istaji haddii ay wax kugu sameeyaan anaaman daynin iyaga marka dambena waxaan arkaynaa dhammaantood iyagoo wada faraxsan oo kusoo ururay wiilkii hakarka ee endrik lagu magacaabayey maadaama fideogii gabadha laga duubay in instagramka uu soo gelinayo si ay dadku wax walba u ogaadaan kadibna waxaabay weydiinayaan halka uu soo dhigayo kadibna waxaabuu ka odhanaya waxaan soo dhigayaa gabadhii fareeye lagu magacaabayay akoonkeeda jayna weyba yaabasa waxaanay ka odhanaysaa oo xataa akoonkeeda maad jabsatay waxaanu ka odhanaya anigu hakar maanan ahayn kadib kayfar ayaa dhanka kale jay ka odhanaya 2 jeer ayaan amaah kugu leeyahay madayn sababtaa 2 jeer ayaan ku caawiyey kadib jay way aamusa waxaana la dabaaldegaysaa siiyeen dhanka kalena waxaan arkaynaa fareeyo markay fideogii aragta aad u xanaaqaysa sidoo kale dhanka kale waxaan arkaynaa iila oo iyaduna warwarsan maadaama la fashilinayo qofka waxaan ka dambeeyey laakiin iris ayaa ka odhanaya istaji wax walba way hagaagayaan wax tallaabanaha qaadin buu ka odhanayaa haddii kale adaaba isfashilin doona marka dambena waxaan arkaynaa kayfar oo la hadlayay jay waxaanu ka odhanayaa maalin walba cuntadaada ay soo qaadaya kadib bogoskayre cuntada ay ku sidatay ayuu ka qaadaya waanu kala cararayaa kadibna meesha waxaa soo istaagaba yuuri waxaanu ka odhanayaa maxaa tiri maalin walba maanaga cuntada nala cunaysaa waxaana ka odhanaysaa haa yuurina aad ayuu farxayaa kadibna labadooda way israacayaan waxayna u tegayaan siyan iyo david oo qol sii fadhiya meel wax ku cunaya marka u yimaadaan way la yaabayaan jay markii soo fadhiisatana cuntadeeda ay la soo baxaysaa waxaana ka odhanaysaa maalin walba halkan ayaan cuntada ku cunayaa jayna kadib cuntada way wada qaybinaysaaba waxaana way soo hadhwaayayaan yuurina markuu arkay inaanay waxba u hadhin cunto ayuu siinayaa laakiin way is adkaynaysaa markay aragtay inay cuntadu tahay jabaniis kadib cuntada ayuu soo qaadaya afka ayaanu qasab ugu gelinayaaba siyan iyo david oo meesha fadhiyina markay arkaan sida uu yuuri u dhaqmayo way yaabayaan maalinta dambana waxaan arkaynaa jay oo wadada lugeynaysa kadib markii baaskelideedii ka xumaatay laakiin iyadoo dariiqa maraysa waxaa joojinaya wiil ay hore u kulmeen ama wiilka ay maalintii wax u tilmaamisay waxaan ka odhanayaa soo kor gaadhiga aan kusii qaade laakiin way diidaysaa waxaan ka odhanaysaa waa caadi waan iska lugeyn karaa marka dambe laakiin waxaa meesha soo marayaba yuuri oo gaadhigiisii wata yuuri ayaana ka odhanaya soo kor wayna raacaysaa marka dambena iskuulka markay soo galaan yuuri wuxuu arkaya iyadoo alaab fara badan sidataa ama cunto fara badan waxaan ka odhanaya waxaana cunta ayaad u sidaa waxaana ka odhanaysaa waxaan siinayaa siyan kayfar iyo david waxaana ka odhanaya kayfar maxaad cuntada la wadaagaysaa iyadoo ka odhanaysa siduu ii difaaco kadibna meesha waxaa soo marayaba kayfar waxaanu kala cararayaa shantadii ayaa cuntada ku siday kor ayaan uga qaadayaa si ayna u gaadhin waxayna isku daysaa inay kasoo qaadato laakiin way gaadhi waaysaa cuntada shantadiina galaaska ayuu keenayaaba qof walba ardaydii ka tirsanaa galaaskuna waxbuu ka saaranayaa jayna way yaabantay meesha ayna dhex taagan tahay cuntadeediina waa la kala wada qaatay kadib galaaska waxaa soo gelayaba macallinkii waxaanu odhanayaa iskuulka maalindha waxaa ka bilaabmaya tartankii sanadlaha ee la qabanayay macallinkuna sidoo kale wuxuu sheegaya inuu tartankani socon doono muddo isbuuca tartankana waxaa ku jiri doona ayuu odhanayaa tartan lagu tartamayo quruxda sidoo kale macallinku wuxuu sheegayaa in qaybtoodan ay mas-uul ka noqon doonaan amaba ay tartanka ka qaban doonaan qaybta nadaafadda kayfarna wuu xanaaqaya markuu arko intuu istaaga ayaanu odhanaya waa in la bedelaa xeerarkan la sameeyey kayfarna wuxuu rabaa inaanay ka qaybgelinba tartankan qaybtoodu sidaa darteed wuxuu odhanayaa tartankan waa gebi ahaanba in la joojiyo laakiin jay ayaa istaagaysa waxaan odhanaysaa anigu weligii tartankan kamaan qaybgelin
inaynu ka qayb galnaana way fiican tahay laakiin kayfar ayaa ku qaylinaya waanu diidayaa macalinka ayaana soo dhexgelaya waxaan odhanayaa idinka qaybtiinu waa qaybtaas waxaana idinku qasaba inaad qabataan waxa laydin diray marka la ismari waayana ardaydii waxay ka codsanaysaa inay codayaan oo gacantaagu sameeyaan ardayduna dhammaan waxay isku wada raacayaan inaanay ka qayb gelin laakiin jey way kasoo horjeesanaysaa waxaana isku daysaa inay ku tiraado tartanka ka qayb gala waayo way idin dhaantaa intaad guriga iska fadhin lahaydeen marka dambana waxaan arkaynaa jey oo kayfar cunto siinaysa waxaanu ka odhanayaa cuntadaada halkan ayaad ku cunaysaa meel fogna kuma cunaysid laakiin jey way diidaysaa weynaysa adkaynaysaa kadibna meesha waxaa wada imanaya siyan iyo asxaabtii kale oo dhan kayfarna wuxuu ka odhanayaa dhammaantood way dhegaysta maanta wixii ka dambeeya halkan ayaynu dhammaanteed wax ku wada cunaynaa qof walbana cuntadiisa isagaa soo qaadanaya jeyna kadib waxaan arkaynaa inay farxayso maadaama culays laga dulqaadayo dhammaantoodna way wada fadhiisanayaan cuntadooda ayayna bilaabayaan inay cunaan kayfarna sidoo kale wuxuu u sheegayaa in maanta wixii ka dambeeya cid ka xadi karta cunta aanay jirin marka dambe isaga laftarkiisuna wuxuu la soo fadhiisanayaa yuuri iyo ardayda intii kalena halkaas ay kasoo eegayeen oo waa kuwii dadka wax ka xadi jiray iyagu laakiin maanta wixii ka dambeeya cuntadooda inay soo qaataan weeye laakiin way u adkaysan kara waayaan saaxiibadooda soo daawanaya maadaama iyaga laftarkooda ay gaajoonayaan cuntadan ay haystaana kuma filna sidaa darteed miika ayaa odhanaysa cuntada aynu wax ka siino laakiin kayfar ayaa odhanaya inaguma filna cuntadu jeyna marka dambe fikrada ay soo jeedinaysaa ah inay cunto karsadaanba dhammaantood maadaama meesha wixii wax lagu karsanaya oo dhamme ay yaalaan laakiin kayfar ayaa ka odhanaya waabad u baratay mar baad isku dayda inaad wax kariso iminka laakiin macquul maaha nagdaabu ka odhanaya cunto badan ayaa la karinayaaye jey kadib waxay weydiinaysaa ardayda haddaa alaabtan meesha taalla yaalay meesha u taallaa filigiis ayaa nagu jawaabayo xalimaan oo ah arday maqan oo saaxiibkeena maalmaana iskuulka u ka maqnaa sababtaa wuxuu ka shaqaynaya hodheel aabihii leeyey jeyna kadib waxay soo jeedinaysaa inay ninkaa booqdaan halkaana ay cuntadooda kusoo karsadaanba laakiin kayfar marka hore uu siiraadkeenaya waanu diidayaa marka aamusana marka dambe waxay ogaanayaan inuu aqbalay waxayna toos u tegayaanba hodheelkii saaxiibkood markay meesha tagaanu saaxiibkood arkay inay joogaanna wuxuu ka odhanayaa maxaad soo doonteen maanta kayfarna sida caadadahayd wuxuu isku dayayaa inuu hadal adag ku idhaado laakiin jey ayaa gujinaysa odhanaysa naga aamu wiilkana waxay si degan uga odhanaysaa ma adeegsan karnaa alaabtaada kuu taalla iskuulkaee wax lagu kariyo waxaanu ka odhanayaa ha wada adeegsan kartaan anigu iskuulka kumaba soo noqonayo oon ka baxaya ayuu ka odhanayaa jeyna way ka xumaanaysa waxaanay ka odhanaysaa waayo maxaad iskuulka uga tegaysaa waxaanu ka odhanayaa waayo imika wixii ka dambeeya hodheelkayga ayaan ka shaqaynayaa hodheelkooduna maadaama sii kacaya wuxuu ka odhanayaa 3 qof oo keliya ayaan halkan ku joognaa waxaana qasab noqotay inaan halkan ka shaqeeyo wiilkiina kadib wuxuu ka odhanaya isagoo la taagan iga raalli noqda macaamiil ayaan u shaqaynayaa markii macaamiishu sidaa usoo fadhiisatana jey ayaaba tegaysa waxaanay soo qaadaysaa buugga ay ku qornaayeen miniyuga hodheelku macaamiisha ayana hordhigaysaa waxaanay ka odhanaysaa maan halkan waxaanu nimid inaan ku caawino hodheelkiina siduu ugu soo noqdo siduu marka hore ahaa iyo si ka fiicanba laakiin kayfar oo aan ka helin qaabkii u dhaqantay ayaa ka odhanaya maxaa badahan ku geliyey waanu ku xanaaqayaa laakiin marka dambe waxaaba ku raacaya filigis iyo miika waxaanay ka odhanaya annaguna waan ku caawinanaa marka dambena dhammaantood waxay xidhanayaanba alaabtii shaqada waxayna wada caawinayaan jey iyo saaxiibkood maan jeyna markay aragtay yuuri oo si fiican u shaqaynaya macaamiishiina dalabka si fiican uga wada qaadaya intay u dhawaatayo mahad celinaysaa maadaama si fiican u shaqaynayo halkaana waxaa kasoo eegaya kayfar jeyna markay aragto kayfar ayay u tegaysaa waxaanay ka odhanaysaa ma halkan bada sida looxa iskaga taagnaan doontaa mise wada caawin doontaa maanad arkin bay ka odhanaysaa siduu yuuri u shaqaynayo kayfarna inta xanaaqayaabu garanka bixisanayaa si uu dadka tashankoodao dhan iskugu soo jeediyo yuuri ayaana ku dayanaya isaguna garanka ayuu iska saarayaa kayfarna wuxuu tegayaa macaamiishii meesha fadhiday waanu ka wada qosilinayaa qaarna murqiisa ayuu tusayaa halka dhanka kale yuuri laftarkiisu uu la gelayay macaamiil fara badan sawiro labadooduna meeshii sidaas ayay ku shidayaan jeyna halkan bay qosal u kala dhacday labadooduna waxay samaynayaan aad ayay uga heshay waanay ku faanisay meeshii ayana sidai uga shaqaynayeen ilaa habeenkii qof walbana shaqadii kusoo beegantay ayuu qabanayay marka dambena waxaan arkaynaa kayfar oo alaab sida waxa gacanta kaga daadanaya shaax kulul jeyna gacanta ayay u dhaysay waxaanay ku xidhaysay maro kayfarna iyadu ku xanaaqaya waxaanu ka odhanayaa waxaan oo dhan aadaana geliyey badanna aadaan lagu soo faruuray isagoo siraacnay dhibaatadan oo dhan iyo maxaad madaxa noogu gelisay jeyna waxay ka odhanaysaa xaaladahan oo kale markuu qofku galo lagama aamusi karo qasabna way ahayd odhanaysaa wiilkan inaynu caawinno xaaladuna way isbedeli karaan si kale ayayna noqon karaan markay u dhammaystana waxay ka odhanaysaa imika sidaasaynu ku kala joognaa anigana daalac dambe ima raaci kartid ayuu raacinaysaa markay meesha ka kacdana gacantiisa intuu dhunkada ayuu qosalayaa jey markay kusoo jeedisatana wuxuu iska dhigayaa qof aan waxba samaynba waanu isdhaafinayaa marka dambena waxaan arkaynaaba iris iyo saaxiibadii iila oo meesha imanaya dhammaantoodna way la wada yaabayaan inay meesha yimaadeen saddexdooduna inay is eegaan oo keliya ayaa ka soo hadhaysa saaxib yaal haddaba halkaa waxaa ku eeg qaybtii 3aad ee taxanaana noo socday sidaan horey idinku soo sheegayna taxanaan wuxuu ka kooban yahay 16 xalqadood 7 xalqadood oo keliya ayaana lasoo fasaxay 7daas ayaana idiin soo koobnay iminka xalqadaha dambena marka sida loo soo fasaxay waxaan isku daynaa inaan sida ugu dhaqsaa badan laydinku soo koobno aad baad mahadsantiin saaxiibayaal channelka subscribe saara sidoo kale muuqaalkana like saara sidoo kalena sii share gareeya si videogan dad badan u gaadho